kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada wararkii aad nooga barateen ee aanu idinkaga soo tabino had iyo jeer Wardhowr Media. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay dowladda Turkiga ay ka gudoontay qaybtii labaad ee gargaar caafimaad oo ka qayb qaadanaya markaasi xakamaynta xanuunkan caalamiga ah ee COVID-19. wasiirka caafimaadka iyo wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa safiir ku-xigeenka Turkiga ee Soomaaliya ka gudoomay qalab caafimaad oo dowladda Turkigu ay ugu deeqday dowladda Soomaaliya. gargaarkan ay dowladda Turkigu ay soo gaarsiisay dowladda Soomaaliya oo ah qaybtii labaad waxaa siday 2 diyaaradood waxaana ka mid ah sariiraha loo adeegsado qolalka xaaladaha degdega ah iyo labiska shaqaalaha caafimaadka iyo qalab kale oo dhammaan xilligan loo baahnaa. dowladda ayaa dadaal xoogan ugu jirta ka hortagga iyo xakamaynta cudurka halista ah ee COVID-19 waxaana qalabkani ay u adeegsan doontaa dagaalka ay kula jirto xakamaynta faafitaanka fayraska corona. wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Fawsiya Abikar Nuur ayaa waxa ay dowladda Turkiga uga mahadcelisay deeqdan qalabka caafimaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وايدين وذ السلامة وحن ربا إنان أمهد علي دولة تركيا سفير كحيين كسفارة تركيا مدحة تيكا هيئة تيكا مدحة هذا وفدي كلولا السعودة وزير الدولة وزارة أرمها الدبادة دمان كل جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa mar labaad inaan ugu mahad celiyo walaalahan Turkiga macaawinada ay nala soo gaareen doraad ayay waxay timid diyaarad sida alaabihii qalabkii loogu hortagi lahaa cudurkan xaaladaha coronavirus maanta waxaa kaloo timid diyaarad sida alaab badan oo kamid yihiin sariirihii loogu talagalay in la dhigo ICU-ga waxaa loo qalabkii la xiran lahaa taqaatiirta iyo dadka la tacaalaya dadka cudurka qaba ay gashan lahaayeen waxyaalaha isku isaga protect gareyn lahaayeen inay cudurkan la kulmaan marka waa ku mahadsan yihiin waxaan rabnaa inaan dhaano walaaleen Turkiga mar walba waa garab taagan yihiin ilaahay ajr iyo xasanaad ha ka siiyo waa dad mar walba diyaar u ah inayna kaalmeeyaan waa ugu mahad celinaya dhammaan shacbiga Turkiga madaxweynahooda ilaa iyo cid allaale cid ka qayb qaadatay inay mucaawinadan soo gaarto wadankeena Soomaaliya oo aad loogu baahan yahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa kaliya inaan dhahay ilaahay ajr iyo xasanaad ha idinka siiyo. sidoo kale wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Axmed Khayr ayaa waxa dowladda Turkiga uu uga mahad celiyay isagana geestiisa taageerada iyo garab istaaga joogtada ah ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin iyo gurmadka degdega ah ee xilliyada xaaladaha adag ay soo wajahaan Soomaaliya. maanta waxaan u joognaa halkan inaan soo dhaweyno mucaawanada ay siiyeen dowladda Turkiga sidaad ogtihiin dowladda Turkiga waa dowladda Soomaaliya aad u garab taagan mar walba oo dhib jiro haddana dhibkan haysta oo COVID-19 ama coronavirus dowladda Turkiga ma aha markii koobaad iyo markii labaad ay mucaawano keentay mucaawano badan oo keentayna runtii hadda waa la isticmaalaa haddana waxaan rabnaa inaan ka mahad celinno dowlad ahaan iyo shacab ahaan mucaawanada dowladda Turkiga u fidinayso shacabka Soomaaliyeed. mahadsantiin. dowladda Turkiga oo safka hore uga jirta dowladaha caawiya dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba ayaa sidan oo kale waxa ay soo gaarsiiyeen dowladda Soomaaliyeed qalabka shaybaarka qalabka lagu neefsado labiska shaqaalaha caafimaadka iyo qalab kale oo muhiim ah oo dhammaanba xilligani aad loogu baahi qabo. waad ku mahadsantihiin dhageysiga qodobkaasi warka ah oo idinkaga imanayay Wardhowr Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar haddii aad tahay macmiil soo noqday ha naga iloobin in aad gambaleelka aad furato oo aad klik siiso si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee aanu soo gelino channelkan.